العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنت كذب أنه أخوضياشا iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada Soomaaliya Soomaaliya ay SSC jooga magaalada Xamar waxaan doonaynaa halkan inaan maanta baa ka sii deyno baaqaas oo ku saabsan arrintii ka dhacday ee muddada ku soo noqonaysay halkaa Boocama agagaarkiisa ah ee dadku isku leynayay dagaalka ka dhacay. waxaan doonayaa halkan maanta inaan ka soo jeediyo baaq afar qodob ku saabsan. qodobka hore waxaan kula hadli doonaa insha Allah nimanka guddida ah ee arrinta loo saaray horena loogu saari jiray ee guddiyada ah. qodobna waxaan ka iftiiminayaa maamulka Puntland gaar ahaan inta meesha hadda joogtay madaxweyne ku-xigeenka u sarreeyo. qodobna waxaan kula hadli doonaa nimanka dhulbahante iyo majeerteen. qodobna waxaan kula hadli doonaa nimanka aan walaalahan ee Maxamed Hatib. qodobna dhulbahante ayaan insha Allah haddii la haydmo wax ka oran doonaa. qodob Puntland wax ka leeyahayo waxaa la yidhi berigii daraawishi ay gashay sadigii weynaa ee Ingiriiska berbera ayaa koongareeska Ingiriisku fadhiista waxay dhahdeen war nimankii Soomaaliyeed haybadeennii ay adduunka ku leeyihin waa dilay. markaan Ingiriiska dunida badankeeda haystay caalamkii bayna tuseen weli yaroo dhudhuwanba janaraaladeennii iyo korneeladeennii maalin bajiijyada iyo jaraa'idka caalamka lagu soo daabaaya waxaan iskaga baxna Soomaaliya. wasiir mustacmaradii Ingiriiska u joogtay qadan ayaa qaylisoo tidhi haddii Soomaaliya laga soo baxo qadanna waa ka tegaynaa hindiyana way goodoomaysaa. baarlamaanka Ingiriisku sidaa daraaddeed qaraarka way hakiyeen waxay dooreen bal wax daraawiish dhexdhexaadiya. nimanka Roomaaniyiisa way u tageen nimankii Roomaanka ahaa way soo direen waxay daraawiish in la dhexdhexaadiyo. nimankii Roomaanka ahaaba waxay u yimaadeen daraawiish waxayna ku yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu Ingiriisiga dhexdhexaadino haddii aynu fayska hore ku heshiino halkan dhexdhexaadinta fayslabaadka waxaanu idin geyn doonaa meesha la yidhaahdo Rooma. annaga halkaasaanu iyaga ugu yeedhinaa annagaa idin dhexdhexaadinayna oo idiin garnaqana. sayid maxamed cabdulla xasan baa allah naxariistay la hadla wuxuu ku yidhi oo ma idinkaa Ingiriisna dhexdhexaadinaya haa bay yidhaahdeen oo walaalayaal haddaad garnaqasaan hadeer bagartu way iska caddahay maa sheegtaa hadeer bagartu way iska caddahay maa sheegtaa. wuxuu ku yidhi oo sidee loo caddeeyay bay Roomaanka yidhaahdeen walaalahu nimanka Ingiriis meeshaan isku haysanaa haddii ay tahay England annagaa ka gardaranayna qabta haddii meeshaan isku haysanaa ay tahay Soomaaliya bartankeedana walaalahu gaalka Ingiriis ee England ka yimi ee Soomaaliya bartankeeda ay ugu haysta haddii aad nin qaban kara tahay intuu hangool halka yaallo hortiisa a qaaday buu yidhi hooyo Yurub ku dhe Yurub nimanka guddidaa waxaan leeyahay war in madanyaro haddaad gar qaadi karaysaa ama garnaqasaa arrintaas way soo laalaabatee haddee bagartu way iska caddahay ma sheegtaan oo tirahda war walaaladii dhulkooda oo dooga taga intaa qolo ma tirahda inay gartu way iska caddahay idinka intaasaan idin leeyahay. maamulka Puntland gaar ahaan inta meesha joogta ee madaxweyne ku-xigeenku u sarreeyaan mid baan leeyahay kale waxaa la yidhi ninka Yahuudaba wuxuu noqday kalluumaysato baddaa buu noqday laash buu qaatay aabihii baa dhintay nimanay walaalayihiin baa loo yeedhay oo yidhi waraabaha qola badan buu ka dhintay oo kaale ninkii waa iman waaye wax loo qayliyaba sidii loo sugayay buu isna ku dhintay wiil yar buu ka tegey labadii nin adeerka u ahaa wiilka yaree ninkii dhintay walaalahayn baa wiilkii doonay way keeneen way u cadhaysnaayeen oo muddo badan bay u qaylinayeen hadii afar tira bay subaxii dambe u socdeen waxay yidhaahdeen xoolaha adigaa leh cid kuugu imanaysaana ma jirto laguna la raaci maayo ama siidaa ama ilaasho. inkastuu weli yaroo badku koran yahay oo xoola sida loo raacabaan aqoon haddana waa lexjeliya caadadeeda u shuqaat hase ahaatee markuu gurigii yar ka socday ayuu laba buroo cawsa afartii tira adiga ahayd ku tubay oo subax kaga qabtan markaasay riimarihi dili markaasuu isdaaya walaalaha tihi wadacumaha ha ka gardaraan haddaa ka wad gabadha yardaa maantiyoo dhan buu qaylinayo argii la hadlaayay fiidkii buu soo hoyay arigii oo aan nafi ku jirin iyo isagaan nafi ku jirin subaxii dambe markii waagii beriyey ayaa la yidhi haye raac adigaa wallaahi billaahi raaci maayo
والله بالله راعي مايو سبب وعن كور الله شرع مقولي شرع مقولي وعن كذا مدح البلدان قال هان أنت كسر شدة ولا صار يسنى يهدي البحوي لكويك وقرية ماشي فريا كان والله كان كل والحملي وحنا نسبة جدا لكن والله يضحك كافرنا وهاي ورا هاي البشرية هذه والله تين هستينا سكر دهونيا وهاي لا تقول هاي ورا هاي البشرية هذه حتى إنه مقلي ويني وهاي إدمانها لما خيرني ولا حضر سيان وحضرت كل الدونان لا فريستان يقول لما خير ولا حضر سيان كرسيان كقدرات وراحله هاي هذا هو قدرته هذه تعيد مقلساء شفتوا انت عصيها لكن ما انت قلت الدبو يجي كمدي هنا يقهدان هقوق لي هنا يقهدان محمد هل انت تبها الله وقل ما يحين دور كولا وهي هاي هنا ده فريستان كرسية على بعض قلوب عندي قدرات وراحله وخلاص يقول له هو تقدرات هاي وراء هاي كذا قدرات تام انت سجل لي هلا وحنا يعني نقدر بالبهدية ما شفتين ولما يوحد حقيقة وين لا الله إن بدو بين الصوم والمقطع ما أنت أنا حقيقة دي ما قرأت الله سيدا عندنا نور المقطع وحرونا ما أنت واحد الدنيا إلا كلب الباديو هي كلب البادين توبعهم ما حسن واسي يعيش الهم هو البهندية ما جرتين وحي داعي نقرنا قالوا وحكا داعي نقرنا فريد وحكا داعي نقرنا حتى حاجة جوتين نقرنا dadku inuu siiriyo waa laga wanaagsan waxa maad kala badbaadinta u baahan waa baahantiya ma jirteen hadayna inagu gardarada isaga garaabin oo waxaynu isku hayna ka wada hadal oo xaqiiqada loo go'aamin oo cid waliba khaladkeeda inay saxdo u diyaar garoobin oo wax garadkeedu fakirin dhiigiina iyo raggiina isku dhimanaya cid idin kala badbaadinaysa ma jirto waxaan maqlayaa hadalkii suldaan siciid suldaan garaase uu lahaa xagga iyaga afar bii baddu baysa mooyaane waxaan ciise maxamuud ahayna ku dhintay haddaad maqashaan gardarrada annaga ah waxaan leeyahay dagaalka ninka ku dhintaa oo quri ma galo kuwa badan oo galan toodii oo noqon oo ku dhiman baa jira dhankay doonaba ha ahaadeen haddii sadeedu ku qabanayso qolada kale aan hadalkaas la guuli kuwa kale laftooda afarta kale dhintay la sheegayaaba waa bawaacismugo iyaba haddii wax minagu sii socdaana baha badan baa imanaya dhan kastaba baha badan baa ka imanaya waxaan leeyahay haddii aynan idinku fekerin haddii aan maskaxdiinu shaqayn haddii waxaa la sheegayaa aad isu tihiin aad garan weydaan anuu sida oga jiraan ma garan maayo waxaa la sheegaya inu isu nahay haddii aydinaan ilaalin haddii danaha iyo waxaad isku qabtaan aad dhowran weydaan haddaynu isdillo oo raggaa la isku dilo waxaa ka dhalanaya waxa weeye majeerteenna intuu dhulbahanta ku duula marin maayo dhulbahantana intuu majeerte kusoo duula marin maayo laakiin markay isdilaan waxaa ka dhalanaya waxa weeya inay tulliimo ku kala go-aan inay dhexmar ku kala go-aan inay dhul ahaan ku kala go-aan inay dowladnimada ku kala tagaan war ninkii doonaya in dadku isdilow ninkii doonaya ka shaqaynayo ninkii aan xaqiiqada maanta la dala imano waxaad doonaysaa inay dhacaan waa intaa inaynu tulliimo ku kala tagno dhul ku kala goono dhexmar ku kala goono dowladnimo ku kala tagno waxaan leeyahay waxgarad badan baa jira labada dhinacba inkastoo dhaliilo badan leeyihiin waxaan idin leeyahay khayrkeena ninkii tala kala haro maanta qoodha iyo xeradaba jirta intaasaan dhulbahantiya ma jirteen leh halla waxaan leeyahay walaaladayo maxamed arti warnimo yaho soomaalidu warnimo yaho waxaa la ninku hadduu waxaaga kugu qabsado oo ku yidhahdo war hana kala gaadhooy war hana dhexdhexaadiyoy war ragga hala kala gaadhooy haddii uu yidhaahdo macnihiisu waa ku qabso ku qadimayside hadday walalee taahun guriyada kala jiro oo arrintu sidaa taahun guriyada kala jiro waxaan idin leenahay koox annaga naga mida ama puntland ha joogto ama istima ha ahaato ama cuqaal ha ahaato ama hawad ha joogto ama nugaal ha joogto cidee doonta ha ahaato ama qabiil annaga naga mida ha ahaadee cid idin siin kartaa ma jirto xasan ugaas garaadka u sarreeya waxaa u sarreeya ugaaska
وقاس كوسرية ويلك حركة شيء وقاس أنت إليه حتى يروح ورقة الكدوة ما بحسون يسوع إذا ما سينكرا هذا كان حتى هو تلاقي شيء وحكهم بعض الشيء ولا ريا ولا يلوه لحديو ولا يلوه قرقة ماشي ميالا عن حق توجين تقاضنه عن عيدك كالقاضنه مركي من تاجرنه مركيتنا ويستونه محمد هاتيه ويستونه قالوا هدو قال كاي تيران كرال هدو بوسة تيران كرالية هدو دولة تيران كدونا استونه استتقى شراء وقوي الصوماليا يقول الصوت بالبهنتين تكدي شاء مركا ترى الهبطة هنا كيكا ترنتين هديا يدين موقتو والله يدين قرسيو وقال قروستا يدو قروشيه هدري تليمة هدري قردخل نوضو كينا وحي لك قاري يسوك يسننا وينو كيشيلنا حينا يدين يقول لك هذه ميسو وينو كفلنا هذا يدين الله هاويلو وذنبوري ينديب اللغي كان ويدان ويدين الله هاويلو وأدوان كي يتردي من النغطو هنا الدول تصور ديغان يستان ومقاوين كان يستان تقول لك شيء أما إذا لفتين بي إذا طلبت جرتان وطلب محمود سليمان وبريري حيدري نوقل كينا أنا وأمان بقى معرضنا أما نطلب نصريرنا أما نسكين علمنا انت بعد قوايا لا أنا راح أبقى لكن يدك بريري هنا تبع الهلال اللي بيسود بلايا يدو بحش بريري حيدري إنما رياض وقلتنا رمضان أحمد طيب محمد هتلاقي إنما رياض متكانا يصدق متكانا للبهانتنا وحليه ورمي يوم البهانتين منكم مالين والبا حاجة عيسى وهذا الكيد قبيلة هي وحاجة السوداء قبيلة كيف يقولوا مو هناك سنة تنوع كلامك اعتماده وحول ذلك الشيوي ورب الاستوانطة يصدق كل عقل لا عقل توضع خادية يصدق تنوع كلامك لا تشري محمد التوى ولا لهم حجنين يمحكتوا وين الدماعية تنوع كلامك اعتمادنا رب هم تلبح كده يا وحبحية هم تلبح كده يا وحسيعية لبضع مديرة لكن حاجة قربوا يا يعوض قول لي لتا وهذا الكيد الطبيعي يندق لي كعرة انت صيرنا وهذا كسر الجبلية صومالنا وحكم مهما هذا نور وهذا الكعب الصمد كله كل نوع روح بدن يمد عليه نوره نكي جرمية ويفرنتها والسلام عليكم ورحمة الله